درسي waxaan ku baranaynaa sida connection looga dhex sameeyo network kala duwan. Waxaan soo sheegnay qalabka ama device-ka loo yaqaan router inuu connection ka dhex sameeyo networks kala duwan. Darsiga marka practice ahaan ay ku qaadanaynaa wayga iyo qaabka oo router-ka connection kaga dhex sameeyo network kala duwan. Hadda halkan waxaan ku haysanaa hal network. Network-ga marka wuxuu ka kooban yahay kaliya hal switch iyo 5 computer iyo printer. Dhammaan marka device-kan waxaa leenahay waxay ku wada jiraan hal network. Sida marka u practice gareyno wayga connection looga dhex sameeyo network kala duwan waxaan u baahanahay network labaad. Sida network kale u helno waxaan dhisaynaa network ka kooban hal switch iyo 3 computer. Sida marka u dhisno network-gaas waxaan soo dooranaynaa marka hore switch-ka. Waxaan ka soo dooranaynaa dhankan waxaan imaanaynaa meesha ku qoran tahay network devices kaliya aan ku siinaynaa. Kadib switch ayaan kaliya ku siinaynaa. Waxaan soo dooranaynaa marka switch-ka ugu horeeyo. Waxaan ku soo biirinaynaa marka meeshan 3 computer. Dhanka computer ay aadina ay ku qoran tahay any devices. Waxaan soo dooranaynaa 3 computer. 3 computer iyo switch waa inaan connection ka dhex sameeynaa. Waxaan isticmaalaynaa cable. Waxaan tagaynaa dhanka cableska. Waxaan soo dooranaynaa cable-kan saddexaad oo ku qoran copper straight through cable. Waxaan kaliya ku siinaynaa switch-ka. Waxaan dooranaynaa marka ports ka mid ah. Port ka mid ah ports-kan ka soo qaad inaan doorano portiga koowaad. Kadib waxaan soo dooranaynaa mar kale cable-ka sida ugu xirno labada computer kale. ugu dambeyn waxaan kaliya ku siinaynaa portiga ka soo qaad inaan doorano portiga sagaalaad. waxaan kaliya ku siinaynaa computer-kan kale. Hadda waxaan haysanaa marka network A iyo network B. Hadda waxaan helnay laba network ayaan helnay. Sida marka labada network connection kaga dhex sameeyno waxaan isticmaalaynaa router ayaan isticmaalaynaa. Router-ka waxaa laga soo doortaa halkan. Waxaad tagaysaa dhankay ku qoran tahay network devices kaliya aan ku siinaynaa. Kadib waxaa hoos kaaga soo baxaya marka devices oo ku qoran routers iyo switches. Waxaan dul tagaynaa marka dhanka router-ka kaliya aan ku siinaynaa. Halkan waxaa kaaga soo muuqanaya marka noocyo kala duwan oo router ah. Waxaan ka dooranaynaa noocaan ay ku qoran tahay 1841 kaliya aan ku siinaynaa. Waxaan dul imaanaynaa meeshan kaliya aan ku siinaynaa. Sidan waxaan ku soo dooranay router-ka. Hadda waxay inoo harsan inaan connection ka dhex sameeyno router-ka iyo labada switch. Sida marka connection kaga dhex sameeyno waxaan soo dooranaynaa cable. Waxaan tagaynaa dhanka cableska. Waxaan dooranaynaa isla cable-kii aan ku xirnay switch-ka iyo computer-da. Kaliya aan ku siinaynaa cable-kan. Waxaan dul tagaynaa marka router-ka kaliya aan ku siinaynaa. Markaan kaliya ku siino router-ka waxaa inoo soo baxaya marka ports-ka ama godadka uu leeyahay router-ka. Labadan god ugu horeyso oo ku magacaaban auxiliary iyo console waxaa loo adeegsadaa configuration markii aan ku sameynayso router-ka. Labada kalena waxaa u adeegsanaynaa router-ka markii aan ku xireyno switches-ka. Hadda waxaan dooranaynaa midka ugu horeeyo. Labada ugu dambeyso midka ugu horeeyo ayaan kaliya ku siinaynaa. Waxaan dul tagaynaa switch-ka ugu horeeya. Markaan kaliya ku siino waxaan dooranaynaa marka ports ka mid ah portigan ka soo qaad waxaan dooranaynaa portiga 13aad. Waxaa inoo harsan switch-ka kale. Waxaan soo dooranaynaa cable kaliya aan ku siinaynaa. Waxaan dul tagaynaa router-ka. Waxaan dooranaynaa portiga soo haray ayaan kaliya ku siinaynaa. Waxaan dul tagaynaa marka switch-ka kale. Waxaan dooranaynaa ka soo qaad portiga 10aad. Sidan waxaan connection kaga dhex sameeynay network A iyo network B inuu adeegsanayno router. Darsiga waxaan ku barnay wayga ama qaabka loo soo doorto router-ka iyo sida router-ka loogu xiro switch-ka.